بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد جامعة هيميلو Faculty of Engineering and Technology Department of IT. Department IT جامعة هيميلو waxay u kala qaadaa laba qaybood. qayb ardayda ay ku baranayaan degree-ga caadiga ah Bachelor Degree of IT ama Computer Science iyo qayb kale oo loo yaqaan Professional Diploma in IT oo ah diploma maaragtay sheegay ardayda ay ku baranayaan culumta IT-ga iyo teknolojiyada la xiriirta. diblomadan IT-ga jaamacadda waxay ugu tala gashay inay qaataan ardayda aanan baranin cilmiga IT-ga tusaale ahaan ardayda kulliyadaha kala barta sida caafimaadka iyo maamulka iyo maareynta dhaqaalaha culumta maaragtay sharciga ardayda aanan caadiyan u baranin IT-ga ayaa loogu tala galay inay koras ka qaataan saddex dufcadood ayaa hore uga qalin jabisay hadeertaan waxaan qabanaynaa dufcadii afraad oo noo bilaabanaysa goordhow hadduu alleedmo ulajeedka ugu weyn ay jaamacadda u sameysay diblomadan IT-ga ayaa ah in adduunka hadeertaan uu u socdo isticmaalka teknolojiyadda iyo kombiyuutarka qof kasta oo maanta wax bartana uusan ka maarmaynin inuu isticmaalo computer waxaa jira dad kulliyado fara badan ka wada baxay aad ugu adag tahay inay isticmaalaan computerka sidaas leejligeeda iyadoo ka duulaysa jaamacadda baahidaas waxay naqshad gareysay diyaarisay diploma ay dhigan karaan dadka aan baran culumta IT-ga si hadhow xirfadooda ay u kaabto diblomadan waxaa loo kala qaadaa dhowr qayba loo kala qaadaa qaybaha ugu horeeya ardayda waxay ku bartaan waxa la yaqaan basic skills of computer ay ku bartaan oo ah xirfadda asaasiga u ah qof kasta ee raba inuu computer isticmaalo waxyaabaha qaybtaas basic-ga lagu barto waxaa kamid ah sida qofka uu u diyaarsan karo document asaga uu rabo hadduu rabo inuu report diyaariyo see maaragtay computerka ugu diyaarsada waxaa jira application basic-ga oo uu ku baranayo sidoo kale qaybaha basic-ga waxaa kamid ah haddii qofka uu hawlo ganacsi ku jiro ama shaqooyinkiisa ay uga maarmaynin inuu maaragtay ku xalisto waxyaabaha xisaabaadka la xiriira wuxuu ku baranayaa qaybaha ugu horeeya ee maxay basic skills kan ugu talagalina ardayga siino sidoo kale waxa basic skills ka ardayga uu ku baranayaa sida loo diyaariyo presentationada waxa jira application loogu talagalay presentationada in lagu diyaariyo saddexdaas qaybood waa qaybaha maaragtay basic skills ku ah waxaan lagu bartaa maxay xilliyada ugu horeeya ee diplomada qofka markuu bilaabo markii qofka uu iska diyaariyo ama wax badan ka fahmay skillskaas basic ah waxa uu qaadanayaa sidoo kale eegana qayb kale oo kamid ah diblomadeena oo loo yaqaan programming languageskaas qofka waxay ka saacidayaan in uu diyaarsado software asaga u baahan yahay mid shakhsi mid ganacsi mid waxbarasho si iskiisa u diyaarsan karo qaybtaasna waa qayb kale waxa sidoo kale kamid ah diplomada aan IT-ga ku bixinayno qaybaheeda kale waxa kamid ah qayb ardayga uu ku baranayo sida loo naqshadeeyo loona diyaariyo website-yada oo macnaheedu yahay haddii qofkan u baahdo inuu website sameysto website qurux badan nooc rab ha noqdo website ganacsi ah website shaqo ah waxbarasho ah website madadaala sidee qofka ayuu u diyaarsan karaa website aad u qurux badan iyadana waxay qayb ka tahay diplomada aan ku bixinayno culumta IT-ga sidoo kale waxa kamid ah qaybaha lagu barto culumtaas IT-ga diplomada aan bixinayno sida maaragtay qofka uu u cilad baxsan karo computerkiisa haddii uu ka halaabo waxaan loo yaqaanaa computer troubleshooting haddii aad computer isticmaasho xaafadu ku yaalo goobaha shaqada uu ku yaalo waxa daruuri ah in mararka qaar ay cilado ku soo wajahaan oo computerka ay ka ciladoobo sidee marka si xorriyada adigoo aanan maaragtay sheegay meel kala geesnad holahaas cilad bixinta adiga u samaysan kartaa waxay qayb ka tahay diplomada aan bixinayno sidoo kale waxa diplomada lagu bixiyaa in qofka uu wax ka fahmo sida loo rakibo network sida qofka tusaalahan goobaha shaqada joogtid meelaha waxbarashada even si personally gurigaaga hadii aad rabto inaad network u rakibato sida networkaaga u xiriirsa cabling router and switching configuration waxaas oo dhan waxay qayb ka tahay diplomada aan bixinayno waxaa soo raaca oo xirfado ah oo ardayda aan barayno waxa kamid ah sida maaragtay loo install gareeyo CCTV camera oo aan wada ognahay in hadeertaan isticmaalkeedu aad ku badan yahay fingerprinting-ka oo runtii goobaha shaqada aan looga maarmaynin waxaa soo dhan oo xirfad iyo skill waxaan ugu talagalnay inaan ku bixino diblomadan IT-ga aan bixinayno
dibloomada laba xilli ay baxdaa waa full time iyo part time qaybta full time-ka waxay noo bilaaban doontaa dufcaddii afraad oo haddeertaan isqoristeeda ay socoto 30 bisha June oo ku beegan maalin axada halka qaybta part time-kana ay bilaaban doonto 4 bisha July oo ku beegan maalin khamiis ah isdiiwaangelintu waxay ka socdaa xafiiska isdiiwaangelinta jaamacadda Himilo waad mahadsantiin waa rajayna inaad soo gaari doontaan oo isdiiwaangelin doontaan hadduu allidmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.